السلام عليكم أصحابتي وسلامتين دونيدا على ميلو بأدوكو جكتين وانيغو شاكر سبي برتا نيجي داونيسو شاكر سبي اوفيشال ما انتي ايميل قرحون من باص راحي كشد انت أصحابتا سيدو كل ماي برادا جو هانتا جي دريم بويز ما انت ميل قرح بدن انت انا هالكو سيفو غانين جي سودو السلام عليكم أصحابتي السلام دمانتين meel walba dunida ka joogtaan waxaa waaye ninkan Nairobi isku qaban jirnay hadda maanta Mombasa isku qabanay lama kala harayo waxaa waaye insha Allah waan la kulmaa qabriga xitaa insha Allah isku kulmaa laga yaabaa qiyaam insha Allah kuwa jannada ku kulmaa Allah naga dhigo insha Allah marka asxaabtooda salaam dhammaantiin halkan ku xiran magacayga waa saa u taqaaniin waxaa waaye Joe Dream Boy oo Jamaal caadi magacayga caadiga waaye marka asxaabtooda waa salaam shaakir dhammaantiin soo dhawaada walaalaha qalbiga furan أصحابتا جناك سبسكرايب على الإيسارو لايك شير كومنتي جو هانتا انت هالك سيد حقلين السلام عليكم أصحاب التيم أنت جوانت على داني برشلونة أكسن channel كداون سينو شاكر اس بي فيشر مركا على سود وي أصحابت marka asxaabta labadan garbeeytaan su'aalaha weydiin doona ninkan horta inkastoo awlkiisa Mombasa joogi jiray waxaan ku hormarayaa ji waxa la yaa saaxiib jiyo inta Mombasa aad joogtay waxa kugu la yaab ka badnaay oo aad Mombasa dhexdeeda ku aragto والله horta hadda waxaan u maleynayaa 16 bir amal meelahaas waa joogaa aad 17 bir meelahaas waa joogaa horta Mombasa waxa waaye wallahi meel aad u shidan waaye ilaa wax saas oo la yaab u saaid ma arkin laakiin waxa waaye jawigeeda soo diitay waxa la yaab waxa waa dad qalbi fiican ku ameesha wada degan wallahi oo ma sha Allah walaaltinimada wax ka garanaya qiimaheeda iyo sharafteeda garanaya ku soo dhaweynaa qof walba ku arka waxa waaye soo dhawaada asxaabta marteen oo tihiin adii waxa waaye kale laba u baashaalnay la yaab ma arkin laakiin waxa waa dadkaas ay inoo jecel yihiin yani inoo soo dhaweynaan qadarinta inoo hayaan la yaab il noqotay aad wallahi Mombasa horta runtii ahaantii dad waxaa joogaan ma sha Allah sida reexamarka oo kale markino yaa dad qalbi wanaagsan ay joogaan reexamar dhigana reexamarta markay soo baxaan kuleel u bartaan mid reexamar meel kuleel ay soo raasayaan mamba waxay leeyihiin unuga qabow dhahan ma garanaysido qabow dhamaran leena kuleel leebis adiga waxanta ku soco asxaabta maxaa la oran jiray wax kugu la yaab madna Mombasa aad joogtid laga yaabaa inaa ku dhalato meesha ما أنا أرتو مكودالان أرت محاجة يعني 2010 كيا سدا أو ما دواي مركا هذه almost 9 years عمل جوا سما 9 years لكن هذه 2018 عمل كتير لكن هذا وصل أبتو باشال إيه بعسي وهو ما دا ماشى على مرمك لكن هالأسبوع مركا جوكت كليلك أنا أردده وقبسنا لكن باشال عندي لا ماشى وكان بصراحة وحلو بحياة قبتها ولا لكن وحياة قولي بدنا كويدي يجيب حيالا ويا بنتين كلا هذا اللي يابين ماشي Mombasa عادي Mombasa مركا وجوا نيروبي عمل معان سو حلي إنه كذا شيء دوا مركا ما واحد يقول يا بني دورته واحد يقول يا بني ما أركن ورتاني عندنا الشيء لكن عادي واي إسكت أنت ماشي هذا النجي ينقل عبان دونا جيو صاحب أنت الدنيا أجوكتي وحياواك وفرح دمنت وحياواك ونحر أنت بنت يا وحمك هذا مقاشد مرجو oo aad la ilmeysay iyo wax marka aad eray lagu sheego farxad dirtii oo aad iska balbadatay marka labadaas su'aal ugu jawaab horta waxa waaye farxadda horta waxa waaye marna way timaadaa marna way tagtaa adduunka ma dhameystirna mar waa murugoon mar waa farxi marka waxa waaye hadda amal horta saayid aan faraxsan waaye waxa waaye asxaabtaada isla soo korteen marka waqti la qaadanaysa ma arkino adoo dhalinyaro amal 10 qof aan nahay oo adii yaraanta ilaa hadda isfahmaayay marka asxaabtaada marka waqti la qaadanay oo isla baashaalaysiin oo waqti walba isla qaybsanaysiin dheef marka isla qaybsanaysiin waa farxi horta asxaabtayda markaan ku dhex jiray aad iyo aad aan faraxsanay waqtigaas waa farxaa laakiin waxa waaye nin weyn ay imaaday soo dhow kaman markii oo adii yani waxa aan ka murugana saayid aan xanuunsan waxa ma qof waalidkaaga hooyo amal maanta haday xanuunsata amal xanuunku waa la dareemo ogta waalid dib kula soo mar way ogtahay qaasatan hooyo maamad hooyadii waa xanuunsanta hadii la dhaha ama maanta si kale muruga dareemo hadii la ana saayid aan murugada baan ku sheegay marka taas waa haatan waxaan soo gaaray Kamaal Moodal cimaamadiisa waayahan dabla heesa waaye Nairobi cimaamadiisa lagu heesa waaye Mombasa noqdo imaaday marka aqi su'aalan ku weydiina adoo taagan waliba yaa waxyaabaha kugu farxada badneed iyo waxyaabaha kugu murugada badneed saaxib adduunka kala kulantay markii labada janaalka hadaan igu weydiinaysid waa ya horta bara janaalkii labadan labadayna martimo ku nihiin haddana iyo su'aalaasna martimo ku nihiinba horta waxa igu farxada badnaa maalin hore ahayd horta midda koowaad horta janaalka mar hore nooga soo hadlay waxa kugu farxada badan horta waa hooyada aragtideeda ama la joogisteeda
iyo labadaada waalid. Farxadda labaad waxay ahayd anigoo isleh Nairobi aan kasoo baxay, anaa isdhahayo Mombasa almost waxaad tegi doontaa 1 saac 2 saac gaariga wuxuu ii keenay 10 saac iyo bar camal. waa farxad because mataqaana fadhiga gaariga aan dhibsanayo because anoo fadhiga dhibsanayo aan balki aan farxay. Murugta horta Mombasa igu inta Mombasa joogo farxadda taas ay ahayd. Murugtana waxay ahayd anoo oo wiila saaxiibana gaarigiisa saaran shil xun geli gaarnay. marka ilaahay naga badbaadiyey. Marka tugtug baa horteena gashay tugtii shilka ku dhacay. marka laakiin qofna waxa kuma noqonin taas horta igu naxdin badneed marka haddaan Mombasa imaaday. laakiin horta bini'aadan aan wax kugu naxdinta badan wax maalin walba arkaysaa inta dhalatay ilaa haddan wax la arkaysaa dunida maalin farxad maalin murug. marka farxadda lama soo koobi karo, murugtana lama soo koobi karo, way badan tahay. marka waxaan leeyahay asxaabta janaalkan ku xiran waa markii labaad aan kasoo dhex muuqanayo janaalkan. waxaan leeyahay subscribe, follow, share, comment wax walba kasoo bixiya asxaabta qaaliga. yarka saaxiibkeena ha loo shiiday marka Shaakir 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 SB official. asayna Nairobi naga doo imaad masaan usoo reys Mombasa naga doo maadama masaan usoo bas anuu iga horeeyay. marka aniga waxaan joogaa maanta 5E beriya 6E 7 mabli uu gaaraa insha Allah. waa isu soo noqod wanaagsan iyo asxaabta Mombasa. one love. haatan waxaan su'aal weydiin doonaa gaawahanta saaxiib midaan ku weydiinaa saaxiib adiga arinta Mombasa ku weydiin mogtay waxyaabaha kugu farxadda badneed oo aad inta Nairobi joogtay. Nairobi iska badaa Mombasa iyo dunidaba dunida inta aad joogtay waxyaabaha kugu farxadda badneed saaxiib. horta waxyaalaha ugu farxad badneed horta waxaa waaye horta farxaddan dila hooyo ag joogiskeeda waa waxa ugu farxad badan hooyada in ag joogo maadaama hadda taa ila joogin boo iga dhee laakiin waa la hadlaa idoo la jooga camal ila mid taa intaas ay ugu farxad badan bara adduunka dhan. asxaabta waxaa idinka tagi doonaa garbahayga waxaa tahay sida ama magacyadooda mar labaad idinku celisho Dream Boy sidoo kaleeto gaawahanta in the building. asxaabta waxaa idinka tagi doonaa sidaas nabadgelyo. waxaan idinka codsanayaa inaad channelka subscribe saartid, like, comment, share aad sii sheegraysid. inta waa ka xasdinahay wala asxaabta like, comment wax weyn lacag fadhido waa taabata leeyahay hala sii sheegay aad marka waxaa idinka tagi doonaa. wassalaamu calaykum waraxmatullahi.